dalka taariikh daweyn horey looga qoray urimayo taariikh maalmaami karo. magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa maanta si rasmi ah looga furay carwada bandhiga buugaagta caalamiga ah ee Laascaanood Book Fair kaasoo ay soo qaban qaabisay hay'adda wadaniga SPO waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay awfuud kala duwan oo ka kala socday deegaanada Soomaalidu degto oo siyaasiyiin aqoon-yahan abwaano qorayaal iyo bulshada qaybaheeda kala duwan madax dhaqameed awfuud ka socotay dawladaha qaaradda Afrika waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda wadaniga SPO Cabdikariin Siciid oo Cabdi iyo sidoo kale maamulka heer gobol iyo heer degmo iyagana ku soo dhawaada gobolkiini Laascaanood maanta waa magaalo nabada alxamdulillah rabbil caalamiin waa magaalo horumara waxaan leeyahay haddii war kale idinka ima jiray war xun oo laguwaa baan leeyahay xukuumadda iyo maamulka gobolka iyo degmada iyo golaha deegaanka Laascaanood intuba iyo ciidanka nabadgelyada waa mid iska kaashadeen waxaan leeyahay insha Allah mar labaad waan isku soo noqon doonaa degmo kamid ah degmooyinka gobolka oo xafladooda ka ku qaban doonaa guud ahaantiin walaalayaal ku soo dhawaada gacmo furan qalbi furan iyo istacayl alla way waaxida ayaa mahad leh bogaadin leh inuu inagu simo munaasabada Laascaanood Book Fair anigoo ah gudoomiyaha gobolka Sool isla markaana ka qayb ah saaxadda siyaasadda ee hogaaminaya xukuumadda u garowdeenka ka yahay mudane madaxweyne Muuse Biix Cabdi aqoontu waa furaha horumarka iyo taabagelinta bini'aadamka waa wadiiqadii madaniga ku ah hanashada horumarka dheelitirka ku saleysan bini'aadin munaasabadan oo ku qabsantay garoonka kubadda cagta ee Cabdi Bilaa Cabdi ee magaalada Laascaanood ayaa sidoo kale waxa ka dhex muuqday hidaha iyo dhaqanka gamaanka fardaha kaasoo si habsami loo soo sharaxay halkaasi lagu soo bandhigay buugaag ay qoreen qoraayo Soomaaliyeed iyo sidoo kale farshaxanka hidaha iyo dhaqanka iyo dalagga beeraha ee ka baxa gobolka Sool munaasabada ayaa waxaa ka hadlay marti sharaftii ka soo qayb gashay sidoo kalena wafuudi ka kala socotay dowlad deegaanka wasiirro ka socda xukuumadda Somaliland ayaa halkaasi ka hadlay bannaankay tuban yihiin dhaqan wixii aan u lahaynaa oo fardaahana weydiintaaga inuu mar dhow soo galayaan waxaan idin leeyahay mar labaad mar saddexaad iyo mar afraadba soo dhawaada farxad weyn bay noo tahay Laascaanood inaanu maanta Book Fair-ki ku qabanno oo runtii ay barwaaqo tahay nabadgelyo tahay sida la sheegayna maanta Laascaanood horumar bay ku tallaabsatay oo maanta kulmisay deegaamadii Soomaaliyeed oo dhan sidii ay u kulmisay halgankii daraawiishta 100 sano ka hor run ahaantii aniga waxay tahay mixed feeling dareen isku jira waayo maanta farxadan iyo munaasabadan aynu u dabaaldegayno aynu joogno waxa kaabiga u saaran boqol guuradii duqayntii Taleex oo ahayd dacdo weyn oo ka dhacday regionkan iyo deegaanka garaadka waxaan jecelahay inaan si gaar ah u hambaliyeeyo maayirka magaalada iyo walaalka Cabdikariin SPO oo runtii initiative fiican oo ku dabaaldayasho mudan oo tusaale u ah horumarka iyo hiigsiga gobolka la yimid waxaan ku leeyahay mudane maayir kullaba waxa uu shaqeyn baad ka ahayd oo waa kii Cabdikariin sheegayay tan waxaan jecelahay inay barbilow u noqoto dhidbaynta horumarka gobolka ay deegaankeedii mas'uuliyad ka saaran tahay oo horumarkeeda iyo nabaddeeda iyo maxay ahayd ilbaxnimadeedaba ay iyaga saaran tahay taasu taa weeyaan ta kale haddii laba qadarkeeda ay waynu badannahay hadalkuna waa maalinta aad qof wax barto nabadaada welis waxa weeye dadku haddii ay wax bartaan nabadday jeclaadaan colaadda way ka fogaadaan waxaa tusaale u noqonaya meeshii wax ka dhacaan ee colaad ka dhacdo labada dhammaantiin aad iyo aad baan idiin salaamayaa kolley annagu waxaanu gacanta ku haynaa qolada wada fanka iyo hiduwa iyo dhaqanka iyo sugaantu
وهل أبوركي iyo curintii waxaan oranayaa allo yaa darwiishkii fariin dabacsan gaadhsiiya gabayga ma soo wada qaadan karo waxaan soo ogahay inay maanta tahay farxad weyn inaynu u joogno bandhigga caalamiga ah ee laascaanood waxay tani astaan u tahay in laascaanood ay u dhaqaaqday dhinaca horumarka waxaa iyaduna rajo weyna maanta in hami weyn oo reer laascaanood lahaa uu rumoobay waxaa sidoo kale iyadana aan u mahadnaqayaa reer laascaanood raacitaan ma lehe rasmigii aniga ahee ajnabi hawriyaaqina sabatiri af soomaaliga wadarta sameeyey si kastaadu kala qaadatan saayid iyo naaquus safkii laga bilaabaan ahaa sida daqaraana magaaladii maanan soo gelinaya waan iska laabtay dee fulay waa tahay oranina meel xabadi ka dhacdaan arag meel xabadi ka dhacda ma aha ee fulaynimo ma aha maantana waan ku faraxsanahay inaan magaaladii joogno xabadinayna ka dhacayn waa arrin aad u qurux badan inta gacan ka geysatay barnaamijkan aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waxaan sidoo kale jeclaa inaan u mahad celiyo wasaaradda warfaafinta oo martiqaadkan deegaankeena u fidisay iyo SVO hay'addan cabdikariin oo runtii waxa way dadaal fara badan muujisay waan xasuustaa ciyaartii koobka ee ka dhacday magaalada Jigjiga maaha waa jawi aqooneed waa jawi dhaqan weyn inta badan runtii waa laga sheekeeyey taariikhda gobolka leeyahay halganka taariikhdu ku ah waa laga sheekeeyey deegaanka soomaalida shacabka ku nool ma jirta geeska afrika soomaalida degta halkan ay sheegtaan oo deegaanka soomaaliduna qayb ka soo galayn laakiin hooyada halganka deegaanka wadda geyiga soomaaliyeed ee geeska afrika waxaan dhihi karnaa laascaanood weeye waana joognaa maanta waxaan markaa isweydiiyey maanta ma magaaladii laascaanood ayaa 4 dowladood oo geeska afrika kulmisay oo laascaanood ku kulmisay oo weliba ku kulmisay aqoon iyo qoraal iyo bandhigii buugaagta ayaan aad isu weydiiyey oo nidhi dad badan oo maanta ama hargeysa jooga ama qurbaha jooga horta inaga rumaysan maayaan magaaladii laascaanood baan joognaa waxaanu ka qayb gallay yahay si dhowran oo karaamo iyo asluub leh waxaan halkan kaga dhawaaqayaa xukuumad ahaan anigoo ah fayeenkii xukuumadda jamhuuriyadda somalilan inay qaadan doonto 500 oo buug oo loo qaybin doono ragga qorayaasha